madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ka mid ah xukuumadda Soomaaliland waxa ay socdaal ku joogeen gobolada galbeedka Soomaaliland iyagoo kala qayb galay kumanaan ardaya oo ka qalin jabinaya jaamacadaha markaasi Camuud iyo Gabiley. Hadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu maanta waxay ka qayb galeen dabcan markaasi ay goobjoog ka haayeen inay ka qayb galaan ardaydii markaasi jaamacadda Timcadda ka baxay. Sidoo kale waxay kulan la yeesheen dadweynaha ku dhaqan goboladaasi. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safarkaasi madaxweynaha inooga warbixinaya. Marka ugu horeysa ummadda reer Soomaaliland sharaf bay u tahay guud ahaan inaan la wadaagno warbixintan. Safarkan waxaan u bixinay safarka neecawda iyo roobka ee aanu ku tagnay deegaanada Boorame ilaa Gabiley inta u dhaxaysa. Runtii waxaanu ku aragnay barwaaqo iyo roob iyo cagaar. Dadka weynaha labada gobol waxay noo soo dhaweeyeen si sharaf iyo karaamo leh, waxaana ka muuqatay jeclaansho iyo ihlow ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa u qabaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga hogaaminaya waxay si gaargaara ula kulmeen gobolka Awdal dhammaan waxgaradkiisa, hadday tahay madax dhaqameedyo, hadday tahay aqoon-yahano, hadday tahay jaamacad iyo hadday tahay nin garboodba. Iswaraysi dheer iyo isxogaysi badan ka bacdi qolo kasta gaarkeed waxaa la isku afkartay si milgo iyo sharaf leh iyo sidii dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland loo adkayn lahaa ee hore loogu sii wadi lahaa. waxaad ka dareemayseen ama ka garanayseen qaabka sharafta badan ee ay dadweynuhu u soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii markii aanu Gabiley nimid waxaanuba ka baqnay in aanu hawada weyno dadka tirada intaa la eg ee nagu soo dhaweeyey goobaha inta aan soo gaarin jaamacadda. mararka qaarkood waxaanuba isnidhi ama dadku waxaan ka maqli jiray dad baa markaa istaadiyamka iyo xajka iyo hawada waaya ama oxygen-ta lumiyo marka dadku isku bato. saaka waanu ka baqnay, dhowr jeer baanu istaagnay annagoo u turaynaa inaan dadweynaha wax dhaawici soo gaadhin. taasi waxay ku tusaysaa sida hirowga loo qabo xukuumadda uu hogaaminaya madaxweynuhu. guud ahaan madaxweynuhu gobolka Boorame wuxuu joogay 2 maalmood, halkana wuxuu joogi doonaa waqti uu kaga boganayo soo dhaweynta iyo aragga dadweynaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. aad iyo aad baan u salaami doonaa. madaxweynuhu wuxuu uga sii gudbi doonaa magaalada madaxda markuu gaadho ka bacdi inuu jaamacaddii Burco gaadho. aad iyo aad baan idin salaaminaa ummadda reer Soomaaliland. waxaan leenahay midnimo, walaalnimo, wadajir iyo ixtiraam qof kasta meeshiisa. aad iyo aad baanu dadweynuhu ugu faraxsan yahay inay arkaan madaxweynahoodii ay doorteen oo si hagar la'aan isagii xukuumaddiisii ugu shaqaynaya. aad iyo aad baan idin salaamayaa, guul baan idin rajaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.